soo dhaweyntan loo sameeyay gaashaale sare Caydiid Axmed Nuur oo ahaa taliyay ciidanka booliiska maamul goboleedka Soomaaliland ee aaga Sanaag Bari ayaa soo dhaweyntiisa waxaa ka qayb galay taliyaasha ciidamada booliiska iyo daraawiishta gudoomiyaha gobolka Nugaal xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda Puntland taliyaasha ciidamada booliiska iyo daraawiishta dawladda Puntland oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay gaashaale sare Caydiid Axmed Nuur salaan kadib farxad weyn bay noo tahay maantay in Caydiid noo yimaado dalkiisa u soo noqo Caydiid oo la garanayo waxa uu halkan ka qabtay iyo inuu ka soo shaqeeyay in badan aanu ka wada shaqeynay amniga dalka inuu qaybta bari loo jeer qaybta Sanaag birmadka karkaar dhammaan waa ka soo shaqeeyay in shaqadiisa la aqoonsan yahay oo la yaqaan weeye aad baan u soo dhaweynaynaa wax badan waa u baahanna shaqadiisa iyo waayo aragnimadiisaba waa u baahanna booliiska haddaanu nahay iyo Puntland oo dhan guul weyn bay noo tahay soo dhawow baan leenahay Caydiid dalku waa dalkaagii dadkuna waa dadkaagii waa kuwaad u shaqaynaysay waa kuwaad intaa ka dhex shaqaynaysay oo wada taqaan qof u taqaan intii weeye wax isma bedelin soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhawow waxaan leeyahay dadka kale oo badan oo rag kale oo naga maqan oo badanna waxaan leeyahay soo dhawaada idinkuna imaada maanta waxaa farxad weyn noo ah inaan soo dhaweyno gaashaale sare Caydiid Axmed Nuur oo ahaa taliyay qaybta booliiska Sanaag Bari guul weyn weeye Caydiid iyo gaadiid halkaas safan maanta inaan ku soo dhaweyno gobolka Nugaal ama Puntland Caydiid oo naqaano oo ahaa taliyay qaybta booliiska gobolka Bari waan ka bedelay 2014 Caydiid waa nin aan naqaan waa sarkaal fircoon waa sarkaal Puntland u baahan tahay markii uu joogay Soomaaliland iyo markii uu joogay Puntlandba isku si uu ahaa sarkaal Puntland saraakiisha dawladda Puntland iyo madaxduba kalsooni ay ku qabaan Cabdi Jamaal Ismaan oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dawladda Puntland ayaa isna ka hadlay goobta waxaan aad u farxad gelinaysaa reerka dana horta xildhibaankiisa baa aad baan ugu faraxsanahay runtii anigu og horena u soo shaqeynay ogna waxa uu yahay qof ahaan awoodiisa iyo garashadiisa iyo tabartiisa aad baan ugu faraxsanahay oo ka mid ahaa siyaasiyiinta iyo saraakiisha iska soo horjeeday gobolka hadda ka nimid oo anu aan matalayo Highland iyo Sanaag Bariba runtii farxad bay ii tahay maanta inaan si garabnahay meel ka soo jeedno aan dhinac weyn jeedno waan waryahayaga iyo xabadda iska soo horjeeday oo sidii dacwada hore u jiray anu yahay isna uu yahay aad baan u faraxsanahay waxaan aaminsanahay in dawladda Puntland ay ku soo hoyatay ilaatin soo halkay yimid goboladaas runtii gobolada in badan beesha caalamka ay tahay gobol isku haysto meelo badan aan marnay xaqiiqada tusnay beesha caalamka magacna waxa soo haysto aan meesha la isku haysto wasiiradii federaalka madaxweynayaasha hadda Puntland tartamayay madaxweynaha hore Puntland joogay oo ku qabtay shirkii umada madaxweynaha hore baarlamaanka ku qabtay shirkii joogtada ah ee baarlamaanka runtii waxay tusaysay ama beesha caalamka ama muddo meeshaas tahay meel Puntland waan ahay meel Soomaaliland mabiyaad buu jirtaa waana loo joogto sidaa darteed Caydiidna wuxuu tahay qiimo badan iyo sharaf maanta dadkiisa dalkiisa deegaankiisa dawladdiisa ka mid noqdo ugu dambeyntiina waxaa madasha ka hadlay gaashaale sare Caydiid Axmed Nuur oo ka soo goostay maamulka Soomaaliland waxa uuna dignin u diray isla maamulkaasi كنت فرحت بيتها هي هيبدي كرامه سيده شرف له دي سو دويسين بقول بادي كما هاد علينيا ومدن اوغا او فيلناي انت اي كبدن باين هدي قوريسان Soomaalidu laakiin waxay tiraahdaa saas u taqaan bay wasal lagu yaqaan amaanta iyo sharafteeda ugu weysayna ilaahay jalla khayran aad baad ka mahad celinaya aniguna runtii waan inoo maqnaa idinka maqnaa
waxaan qirayaa oo xaqiiqo tahay oo xildhibaan ugu horeeyo iyo inta kaleba nin aan jeclayn inaan soo noqdo iyo xiriirku marna inaan goyn baan qiray laakiin anigu aan ku dhigaadka inta aad iga daneysaan oo asaaska Puntland ilaa iyo inta xilaan ka soo qabtayna adii ogtiina anna waan og marnaba inaan lumiyo kuma talagelin inaan ku fogaadana kuma talagelin inta aan joogina waa intii aynu lahayn maantana xilli runtii xilli kala guur oo horey loo socdo oo la midoobaya muuqato marka inaan go'aankeeda qaato iyo taladeeda qaato aniga iga soo bitay igana soo baxay inta aad iga martiyeysaan oo ah waxqabadka iyo horumarka dalka aan ku soo biirin karo anuu waliba si gaar ah sanaag bari si taabanayo leh haddaan caqabad ku ahaa siyaasadda aad jeceshihiin dhinac u wada jeesado maanta daway aragtaan wasacadii شماكات وغادي جامع بنتلان TV قروي